mas-uuliyiin ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo halkan saxaafadda kula hadlay ayaa sheegay in si rasmi ah ay maanta u bilaabantay ololaha nadaafadeed ee lagu qaadi doono suuqa weyn ee Waaheen. sidoo kale maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa oo wasiirka ku weelinaya ayaa sheegay in si rasmi ah maanta ay halkan uga bilaabantay ololaha nadaafadeed ee lagu qaadi doono suuqa weyn ee magaalada Waaheen. shaqadu si fiican bay noogu socotaa. waxaan ugu horreyn u mahad celinayaa qof kasta oo ka qayb qaatay ololaha nadiifinta ee maanta ay ugu horeeyaan ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan dhammaantood aanu magacyadooda kala qaadqaadayn ururka dawladaha hoose ee Algasal oo iyaguna dhammaan degmooyinka 3 degmo doorasho intooda ka soo qayb gashay dhan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ciidamada qaranka ee kala duwan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ciidamada dibdemiska dhammaan laamaha dawladda oo dhan oo ka soo qayb galay iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ururada bulshada oo iyaguna si hagar la'aan uga qayb qaatay aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahad celinayaa saxaafadda qof kasta oo ka qayb qaatay waan u mahad celinayaa qaran ahaan iyo ummad ahaanba waxay noo muhiima inaynu maalintan oo kale wadajir lagu shaqeeyo oo si wadajira loo shaqeeyo waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudaha wasiir maxamed kaahimba wixii awaamira in fari doono inoo sheegi doono hadii la yiraahdo isagoo mudana wasiir saaka shaqadu si fiican bay noogu bilaabantay ilaahay idinkiina intay naga dhamaanayso shaqada halkaas laga wadayaa waxaan si gaar ugu mahad celinayaa shaqaaleynaha dawladda hoose oo iyaguna hawshan hogaaminteeda iyo leaderkeeda lahaa xildhibaanada golaha deegaanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin saacadatul wasiir ku soo dhawow dawaynu la wada soconaayo xaruntii dhaqaalaha ee ugu weyneed qaranka waa tii gubatay dhaawac farabadanina way naga soo gaadhay barnaamijkeenu hadda ku jirnaa waxa weeye sidaynu uga soo kabanayno iyo sida aynu hawsha u dhammaystirayno ee hawsha u gelayno hawshan markaas saaka waxaa bilaabantay hawshii marxaladdii ugu horraysay ama marxaladdii labaad ee lagu nadiifinayay goobta gubatay waxaa saaka ka qayb galaya tiro aad u fara badan oo degmooyinka dalka ah oo qalabkoodii halkan wada keenay oo ku soo xoojiyey degmada Hargeysa ka soo bilaabaysa degmada Burco degmada Berbera degmada Galiley degmada Baligubadle degmada Salaxley degmada Togwajaale degmada Boorame gidigood way wada yimaadeen degmooyinka qaarkood qoladana yar joojisay oo qalabkii baa isku farabatay laakiin ayaguna marxaladda dambe way ka soo qayb galayaan dabadeedna markaa halkan hanti fara badan baa ku burburtay saaka waxaa la ururinayaa wixii bira meel baa la geenayaa wixii qashinana meel baa la geenayaa waxaa ka soo qayb galaya saaka oo nadiifinta qolo walba ka soo qayb galaya dhammaan yahanaynu naqaano ururada bulshada civil society-ga ayaa qolo waliba goob bay leedahay qolo waliba goobteedii way soo nadiifisay qaarna gacanta imika kula jiraan sidaan dhowr jeer hore u sheegnay qaran markay dhibaato ku dhacdo tan oo kala ah waxa qura ku samatabaxa waxa weeye qaranku wixiisu isu wadag marka waxaynu u baahannahay dadka qaar imika waxtar uma badan kama hadlaan arrimo waxyeelaynaya bay ka hadlaan maxaan ku raahdaayeen arrintan aynu gacanta ku hayno ninkii markaa waxyeelaynta ka hadlaya waa yeelkadiisa waqti uma hayno laakiin waxaynu waqti u haynaa dadka qarannimada ku fakaraya ee ka qayb galaya hawshan ay ku barakaceen dadka faraha badan leh ee danyarta u badan goobtan maxaan ku raahdaa ka ganacsanayay waxaynu ognahay waxa ku burburay dhaqaale aad iyo aad u fara badan bilyanaa laga hadlaya dadkii dhaqaalaha haya waxay u baahan yihiin waxa qura wax taraya waxa weeye in maanta la dedejiyo meeshan hawsheedii maanta hawshaasaa lagu jiraa way noo arkaysaan habeenkii dhaweyto dhammaan ganacsatada dalku waxay ka qayb gashay maxaan ku raahdaa qaaraankii loo ururinayay goobta sida dib loogu habaynayo
bulshadeenna reer somalilandeennu qurbajooga u naqaanana waxay giddigood ku hawlan yihiin qabanqaabada shirarka qaaraan ururinta qaaradaha adduunyadoo dhan meel kastay ka joogaan taasay mashquul ku yihiin waxaynaynu leenahay soo dedejiya soo dadaala dhammaan wasaaradaha dalku iyaguna maxaanku dhahdaa hawshaasay ku mashquul yihiin guddidu maanta waxay ku maqan tahay ciidanka qaranka ayaa isaguna qaadhaankiisii maanta wareejinaya ciidan walibana waa diyaar wasaaradaha qaarna way wareejiyeen wasaaradaha kalena giddigood way wada wareejinayaan waxaynu samaynaynaa oo aan ugu baaqaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar afraad iyo mar sanaadba dadweynaheenna reer somalilan degmo kasta gobol kasta tuulo kasta meel kasta oo ay joogaan inuu qof waliba koob shaaha ninka ku darsadaa waa waxtar lacagta koob shaaha haddaynu nahno reer somaliland oo dhan aynu minbixinno min 10 kun oo laanda waxay noqonaysaa mandaradahan wax ka fara badan waxay noo dhisaan maanta waxaynu u baahannahay qaran xaruntiisii dhaqaaluhu gubtay baynu nahay waxaynu u baahannahay inaynu soo kabanno waxaynu u baahannahay inaynu dhaqaalihii dib ula soo noqonno waxaynu u baahannahay dadkeennii inaynu ururinno dadka qaarkooda sida xun uga baac mushtaraynaya mucaaradda iyo siyaasadda ka gelaya halkaa markaad ka baxdo ee aad aragto halkaa ilaa iyo dooxa dumarka fadhiya waa la muraaradilaacay gaalada iyadooda ooyaysaannu ka soo celin waxaa aad iyo aad sharaf u ah inayna weydiiyeen oo na yidhaahdeen dadkani ma dadkii meesha ku gubtay ee waxooda ku baaba'ayba waa dadkii baanu ku nidhi weliba waa intii u danyarta ahayd ee u dhaqaalaha yarayd ma moodid bay idhahdeen dadkan mooralkoodu inay gubteen somalilan dad mooral ardag baynu nahay dad dhibtana hore ka soo ro'eentay kabtayna waynu nahay marka waxaan doonaynaa shaqadanna gacan ha la siiyo dadka shicibka ah hawshan imika waa bilaabantay dadka gaadiidka leh dadka magaalada ku nool waddooyinka macaltan waa la furayaa barnaamij baa loo soo jeedinayaa gaar ah oo lagu maamulayo gaadiidka iyo waddooyinkan dhulka gubtay ganacsaayida bay yeelanayaan gawaadhida wiishashkii guraysay baa la keenayaa dad fara badan hadhowta waxay kalifaysaa meelahan in gaadiidka la dhigto waa laga mamnuucayaa keliya waddadu way u furaanaysaa yaan hadhowto ciidanka biliiska iyo aan layska hor imanin gacan ha lagu siiyo nidaamka ha la maqlo dhibaatayna gaadhay ilbaxnimada iyo wadaninimada iyo dadnimadu waxa ay leedahay in nidaamka la raaco aad iyo aad baynu qoladiinna saxaafadan ugu mahadnaqaynaa qayb wanaagsan baa ka soo qaadateen laakiin waxaan doonaynaa in si fiican saxaafadda haddaad imika aragto waxa ku jira waxyaalo fara badanoo maxaanku dhahdaa aan wanaagsanayn idinkaa jaani siinaya waxa aan wanaagsanin idinkaa idin dhex maraan soo maaha dee waajibaadka saxaafadda waxa weeye waxaa la yidhaahdaa media is all about ethics miidiyaha saxaafaddu gebigeeduba waa hab ethicska waxa weeye waa waxa anshaxa wanaagsan leh saxaafaddeennu ma waxay ka bacmusharaynaysaa waxa anshaxa xun leh horta su-aashaa ma isweydiinna yaa waxaa uga aamusaysaan ilaa annakaba idinka waxna weydiiye haddiise laydin weydiiyo dembiba waxaynu u baahannahay dadka saxaafadda sida khaldan wax uga qoraya maxaanku dhahdaa meeshaa gubatay iminka qashinkaasaa la ururinaya dadkaa waxoodii way guteen yaa talow loo shaqaynaya mayna bixi baa loo shaqaynayaa mayna kaahin baa loo shaqaynayaa mayna moogaa loo shaqaynayaa ma golaha degaankaa loo shaqaynaya yaa loo shaqaynaya waxaa loo shaqaynayaa dadkeennii shicibka ahaa ee halkaa ku barakacay kuwaasi maanta wax laga baac mushtareeye mayay leeyihiin nimanka iminka macadaadkaa wadaa
habeenkii dhaweyto halkaa markaan duminaynay halkaa inaga soo hor jeeda ninkii gurigaa lahaa baa yidhi dumiya kayga daartaasina way holcaysay taasina way holcaysay nimankii macadaadkaa samaynayay ee halkaa gelayay meel waliba iyada oo holcaysa bay gelayeen ninkaasi ma lacag buu dheefaye soo naftiisa muu fidaynayn halkaa waxaa laga dejinayay haamihii gaashtu ku jirtay ayaa nimankii dabdamisku ka dejinayeen ayadoo kari karaysay sida qumbuladda u qarxay karaysay ayay naftooda fidaynayeen qoladiinna saxaafaddii dhegaysta laba isku wadi kari mayno qaranka badbaadadiisa iyo qaranka dhibaatayntiisa laysku wadi kari maayo waa soo dadaasheen si fiican baa ilaa iyo habeenkii u shaqaynayseen si fiican baad u gudbinayseen laakiin waxaa ku dhex jira in xun oo aan xagga cilmiga xagga akhlaaqiyaadka xagga siyaasadda xagga dhaqanka mid gaal iyo mid muslim midnaba ku wanaagsanaynoyna wada dhex maraysa arrintaasi maanta waxaynu u baahannahay ninka mucaaradka wax fara badanoo uu ku mucaaradaa buu leeyahy badanaa ninka mucaaradkii wax uu sheega ninka mucaaradkii dambaskaa waxba ka heli maaya maanta dambaskaa siyaasadii kuma jirto ee hooyadii bakhtiyayso ee ilmihii bakhtiyayo waxaa imminka la xisaabinayaa qof kasta oo ganacsato ah oo heer kasta jooga ilaa iyo islaanta waratada fadhida imise qof baa ka dambeeyey oo ganacsigiisaa ku noolaa hadda imminka sayladda markaad tagto nin reer miyiya baa neefkiisa keena waa ninkaa qora ayaa neefkiisii adhigahaa wata ninkaa neefkaa wata imise qof baa ayaa ku sii daba nool dilaalka malaalka macalhayaha geedgaraaca haddaad afka lagaga hadla sayladda aad tagto wuu fara badan yahay marka waxaynu u baahannahay halkan dowladda dhexe wasaaradda maaliyadda waxa ka lumay dhaqaalihii ay halkaa ka helaysay boqolkiiba 20 baa hoos u dhacay dowladda hoose markii la xisaabiyey maalin joogto dhaqaalihii ay helayeen boqolkiiba 40 baa halkaa hoos u dhacay waa imisa boqolkiiba 60 adduunyada ma jirto qolo boqolkiiba dhaqaalaheedii 60 hoos u dhacayo wali iska nool innaka mooyaane meelo fara badan baynu tamar fara badan laynooga markhaati furaya marka waxaynu u baahannahay samata bixin qaran baynu ku jirnaa samata bixin bulshaynu ku jirnaa soomaad garanin ninka burca jooga ee Hargeysa gurmadka u imanaya 300 kilomitir buu soo soconaya ninka Boorama jooga 100 googo 200 ku dhawaad buu soo soconaya haddaynaan sidaa isugu damqanin oo aynaan sidaa isugu gurmanin ila tuulo yaro meelahan inagama gubanina caasimadii qaranka dad gubatay hantida ugu badan qaran walba caasimadiisay taallaa sayladanina waa sayladii ugu badnayd sayladan ilaa iyo maxaan ku dhahdayay dalalka geeska Afrika mid aanay wax uga soo deganin ma jirto dalalka geeska Afrika mid aan wax uga soo degin oo sayladeena yare dadka la foosha xun leh meel walba way tagtaa meel walba alaabteedu way tagtaa sababtu waxa weeye dekada Berbera ayaa ah dekad meel istaraatiijiga ku taala oo dabadeedna caalamka markii walba qaarad kasta waxa lagu sameeyaa Berbera intay ku soo gaareen dekadaha kale geeska kuma soo gaareen marka waxaynu u baahannahay in la gurmado waxaynu u baahannahay qaranka in hagardaamada laga ilaaliyo ninka bareeriya isaga jirta qolada inta dan moodaysa iyaga jirta laakiin maanta waxa la isugu tagayaa halka sharciyana waynu ka soo saareynaa nidaamkaana waynu isugu tagaynaa qoladiina saxaafadana sharar baan noo qaban doonaa waynu isugu imanaynaa maanta wuxuunaynu nahay halkan waa inaynu xooggeena saaraa galabta halkan marka aragteen yacni waa aad iyo
iyo aad baan ugu ammaanayaa hablaha haweenka reer Somaliland magaalada Hargeysa iyo kuwa kale gurmadka ugu yimi ee sida fiican u haya shaqaalihii halkan ka shaqeynayay ciidamadii qaranka halkan joogay ilaalinayay afuradooda cashadooda intii aan Ramadaan tiiman yaaniga sida ay u shaqeynayaan malayn mays dadka moral baa loo sameeyay inaan moralka kaga kaajin waxa xun ee la qorayaana idinka idin marta saxaafadda adduunyada dhan waana mamnuuc xilliga qaranku noocaasi uu ku jiro in saxaafadiisu wax qarannimada ka soo horjeeda ay noqoto imika ma dawladda Soomaaliland ee maanta talisay xisbiga kulmiye ka dhisan ayaa la amaanaya Damaskan marka la guraayo ma yaga la amaanaya boqorada kulmiye ka gubatay meena bixibay ka gubatay soo qarankani muu wada gubanin tanun baynu ka wada shaqeyn kala mabda aan ahaano qolada waxaan ku dhahdayeen waxa dawladda fara badan baa dad kala wada isiraba dalal fara badan ku nool Mareykanka ka mid ah South Africa ka mid ah Ethiopia-dana ka mid ah qowmiyadaha inta la aqoonsay mala waa dhowr iyo 80 afafka lagu hadla waa 80 in ka badan marka qaar baa dastuurkooda wuxuu ku bilaabmaa si kasta oo aynu u kala duwannahay qaran midabaynuna si kasta aynu u kala duwannahay qaran midabaynu nahay cadaan xasaan madow iska dhal intaasi ay iska dhalaano intaasi iska dhalaana midab gooniya bay leedahay marka waxaanu leenahay inaku intan oo dhiba ma qabno inaku waxaanu leenahay dhibaata ay nagu dhacday dhibaatadii taariikhda intaynu nooleen ka ugu badnayd baynu ayaa inagu dhacday marka waynu soo imanaynaa arintan waynu ka wada dabaalanaynaa hawshanina way bilaabantay goobaha wada gelaysaan idinkoo siiga badan la ka soo rawaxa waxaanoo siigihiina idinku soo dhacday oo inta lowdhe la rari maanta korka ka haya maanta marka waxaynu baahanahay barnaamijkan waynu isugu tegaynaa dadkeennana waxaynu ku dhiirigelinaynaa halkan tamarteenna iyo taladeenna iyo xooggeenna iyo caqligeenna iyo cilmigeennu waxa weeye waa heen sayladeedii iyo marketkeedii in dib loo dhiso soo maaha ninkii cidlada ku rafanaya una yeelkada aad iyo aad baa u mahadsantahay